ilaa 800 oo qoys oo danyar isla markaana ka mid ah qoysaska saameynta weyn ee ku yeelatay fatahaadii webiga Shabeelle oo ka geysay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta loo qaybiyay deeq raashin oo ka timid xarunta gargaarka degdega iyo arrimaha bini'aadanimada ee Boqor Salmaan ee dalka Riyaad taas oo la soo marsiiyay ururka iskaashiga islaamka ee loo yaqaan OIC waxaana loo wakiishay in dadka mudan raashinkan ay gaarsiiyaan hay'adda WAD oo ka mid ah hay'adaha samafalka iyo hay'adaha kale raashinkan oo ka koobnaa noocyada kala duwan ee raashinka ayaa waxa weeliyay bacal loogu talagalay in dadku ay ka galaan qabowga iyo dhibicda roobka waxaana goobta qoysaskan danyarta loogu qaybinaya deeqdan raashinka ku sugnaa isla markaana kormeeraya qaabka ay u socdaan howlaha gargaarka loogu talagalay dadka saameysay fatahaadii webiga Shabeelle madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabelle iyo waliba xubno ka socda ururka iskaashiga islaamka ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan OIC agaasimaha hay'adda WAD oo ka mid ah hay'adaha loogu talagalay in dadka ay gaarsiiyaan qoysaska ay saameysay fatahaadda webiga Shabeelle deeqdan raashinka ayaa faahfaahin ka bixiyay tirada qoysaska maanta loo qaybiyay iyo waliba cadadka qoys waliba la siiyay maanta oo ay tahay taariikhdu 22 November halkan waxaan ka qaybinay 800 oo qoys oo ay ku tabarucday dawladda Sacuudiga ayna soo marsiisay markas bin Salmaan ayna kormeerayso munadamada tacaawun islaami ama OIC-da waxaa fulinayay hay'adda WAD ayaa fulinaysay dadkaas deeqdaas waxa loogu talagalay dadka ku barakacay fatahaadaha waxa waaye raashinku wuxuu gaarsiisay 6,000 maanta waxaan qaybinay 800 ilaa 6,000 oo qoys ayaana la gaarsiin doonaa qoyskii wuxuu qaadanayaa 8 item kaasoo ka kooban 25 kiilo bariisa 25 kiilo bura 25 kiilo sokora 2 loo saliida 6 kiilo timira gasaca fuulku ku jiro oo 8 xabba ah 8 kiilo ah 10 baasto 10 kiilo baasta ah iyo bacda cabirkeedu yahay 4 lagu dhifto 5 oo aan rabno inay u okortaan dadku daadadka dhacaya roobabka dadka hadda aan dooranay waxay ahaayeen dhanka qoraxsinka sidoo kale barigana waan ka qaybinay birina waan sii wadaynaa saadambana waan sii wadaynaa ilaa 6,000 oo qoys ayaana gaarsiin doonaa haddii alla Dr. Ahmed Farax Musa oo ku hadlaya afka ururka iskaashiga islaamka ee OIC ayagu la soo marsiiyay deeqdan raashinka ayaa faahfaahin ka bixiyay tirada raashinka loogu talagalay dadka ay saameysay fatahaadii webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne noocyada uu ka kooban yahay cidda soo dhiibtay raashinkani waxaana uu tilmaamay Dr. Ahmed in ilaa 6,000 oo qoys loogu talagalay in la gaarsiiyo deeqdan raashinka inta dhiman ay qaybin doonaan maalmaha soo aadan isla markaana maanta ay ka qaybiyeen 2 goobood oo kala xaafadda Howlwadaag iyo deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada Beledweyne أنا كوه الله أنا مقعي قال يراد الدكتور أحمد فرح موسى كنا هالله أرجع قبلات كأورك إسلام كصوماليا وحن ما أنت يتهلك كان أن أتاجنه أو أن كقيبيننا ماشان سكول كالأقصى حافظها الوذاق مجال بلد وينه وحن كقيبيننا قيب كم ده دق وسود أي سود يبتي hay-adda Malik Salmaan ee gargaarka degdega ah iyo arrimaha bini'aadanimada Riyaad ay soo dhiibtay oo ay soo gudbinayso ururka iskaashiga islaamka oo aan u hadlayo anigu deeqdaasi waxay ka kooban tahay 600 oo cunto loogu talagalay 600 oo qoys oo ka kooban 6 qaybood ka kooban ama 8 nooc ka kooban cuntadaas ayada ah goobtan aan ka hadlayo waxa lagu aan ku qaybinay maantay 800 oo qoys baan ugu qaybinay qoyskii waxa la siinayaa waxa weeye waa 8 nooc oo cunto ah oo kala ah 25 kiilo oo bariisa 25 kiilo oo bur ah 25 kiilo sonkor ah 10 kiilo oo baasta ah 8 kiilo oo digirta cagaaran ah 6 litir oo saliid ah 6 kiilo oo ah timir iyo teendo 4 mitir lagu dhiftay 5 mitir ah oo qoys walba hal xabba la siinayo intaas baan waxaan reer walba siinay 800 oo reer hal qoys aan ka siinay goobtan aan taaganahay
goob kalena maanta waxaan ku soo bixinay 1400 ayaan ku soo bixinay oo qoys baan ugu soo qaybinay 60,000 intii ka hartayna maalmaha soo socda ayaan dhamaystiraynaa madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Goodlaawe oo u mahad celiyay boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa tilmaamay in intaan ka badan ay ka sugayaan boqortooyada Sacuudi Carabiya inay soo gaarsiiyaan dadka ay saameysay fatahaadii webiga Shabeelle isla markaana ballan qaaday in gargaarka si ay bulshada loogu talagalay in si cadaalad ah loo qaybin doono maadaas kale maanta waxaan qaybinaynay raashin nooga timiday markis Malik Salmaan iyo OIC ay na soo gaarsiisay waxa ayaguna qaybinayay waad hay'adda la yiraahdo iyo saacid labada ayaguna ka qaybinayay halkan goobtan joognana waada ka qaybiyo hayso Allah maadaas iska leh ilaa 6,000 oo qoys ay ugu tala galeen deegaankan Allah ayaan ugu mahad celinaynaa oo nabadgelyada ku qaybayno noo suuro geliyay waa ugu mahad celinaynaa boqortooyada Sacuudiga deeqdan ay soo gaarsiisay dadka fatahaadu waxyeeleeyeen waxaana leenahay culeysku aad u ballaaran yahay intaan ka badan waa idinka rajaynaynaa waxaadna soo gaarsiinay si nabadgelyahan annaguna dadka ku gaarsiin doona haddii la raalli ka noqdo aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka Somali News Beledweyne